Muslim kuma banaana inaad yeelatid teendho ama jiheeye, sidoo kale kuma banaana inaad heshid cunto kugu filan ama inaad isticmaashid baraha bulshada sida WhatsApp. Cunida cuntada intaanay soo bixin qorraxdu waa dembi, inaad cabbi waydaa sigaar waa dembi, inaad diidid cabitaanka khamriga iyana waa dembi, oo inta goobaha la isugu yimaado markay dhintaan waalidiintaada waa dembi, waxaadna gelaysaa jeelka bilaa hadal. Kuwani maaha qawaaniin khiyaali ku dhex jira filim, laakiin waa xaalka 10 milyan oo muslimiin oo ku nool waddanka Shiinaha. Malaayiin ka mid ah waxay ku jiraan xabsiyada iyadoo aysan jirin wax lagu tuhmaya. Maxaa ka dhex dhacaya Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha? Ku soo dhawaada mowduuc ku saabsan cadaabta Shiinuhu ku hayo muslimiinta. Xaggee ku nool yihiin dadka Uighuriyiintu? Galbeedka fog ee Shiinaha, bartamaha gobolka Xinjiang, waxaa ku nool 10 milyan oo muslimiin ah, waana dadka laga tirada badan yahay ee Uighur. Waxaynu eegaynaa cidda ka dambeysa cadaadiska lagu hayo muslimiinta. Shan Shunhua waa taliyaha ciidanka asluubta Shiinaha, sidoo kale ah mas'uul ka tirsan xisbiga Shuuciga ah. Sanadkii 2016 waxaa loo xilsaaray maamulka gobolka Xinjiang, isagoo u diray tiro badan oo ciidan militari ah, waxayna baaritaan ku bilaabay barkantaroolada iyagoo xidhay masaajidadii. Sidoo kale waxay ka qaaday baaritaan DNA ah, iyagoo sidoo kale sawirro ka qaaday faraha iyo indhaha dadka reer Uighur. waxaana kamarada ku xidhan meelaha ay ku kulmaan, waxayna xawishay moobiladoodii. Intaas oo dhan waxaa kaga xumaa waxay ku xareeyeen xeryo ay maanta ka buuxaan malaayiin reer Uighur. Waxay ku sifaysay dowladda Shiinuhu xeryahan cusbitaallo dadka ku xidhanna inay yihiin kuwo ka xanuunsanaya xagga dhimirka, ayna tahay in laga daaweeyo maskaxdooda fayraska diinta ah, laguna soo celiyo muwaadinimadooda iyo dhaqankooda siyaasadeed. Waxaana lagu qasbayaa inay ka baxaan diinta Islaamka, kana noqdaan waxay aaminsan yihiin, soona cirtaan calaamadihii xisbiga Shuuciga. Waxayna ku jiraan xabsiyo aysan ogeyn intay ku jirayaan, waxayna la kulmayaan falalka baxsan bini'aadantinimada. Waxaa loo cadaabay Uighuriyiinta. Asalka Uighuriyiintu wuxuu ka soo jeedaa shacbweynaha Turkiga, waxayna isku eg yihiin 45% dadka ku nool gobolka Xinjiang, kaasoo loo yaqaan Turkistaanta Bari. bilowgii qarnigii 20aad markii Uighuriyiintu ku dhawaaqeen madax bannaanidooda ka hor inta aysan gacanta ku dhigin Shiinaha Shuuciga ahi 1949, waxaana loo bedelay magacii loo yaqaanay gobolka Xinjiang. Laga soo bilaabo waqtigaas waxay ka hoos jiraan gumaysi aad u adag, iyadoo laga cabsi qabo inuu soo noqdo isku day ay ku doonayaan madax bannaanin, kaasoo ay ku riyoonayaan malaayiin reer Uighur ahi. Madaxweynaha Shiinuhu wuxuu noqday Xi Jinping sawirkiisa mid ka dhigaya astaan Shiine, siduu sheegay wargeyska laga leeyahay Mareykanka ee Foreign Policy, kaasoo isku dayay inuu dib u soo nooleeyo kay caabudi jireen ee Mao Zedong, aasaasihii Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha. Waana wadada lagu xaqiijinayo hadafka. Shiinuhu malaynaya cid kastoo diiday inay u sujuudaan madaxweynahooda.